nimco waxaa jirta hees la yidhaahdo 20 jirkan calmaday waxaa la yidhaahdaa inta badan ama dadku ay isla dhex marayaan nimco heestaasi iyaday khusaysaa nolosheeda dad badan way ka dhex guuxaysaa maxaad ku shaafiyi lahayd dadkaasi ama aad ugu sharaxi lahayd ujeeddada heestaasi ay xambaarsan tahay waa runta wariye sabab horta waa runo waxay bulshadu ilowday midhahan inuu abwaan leeyahay oo qof abwaana maskaxdiisii ay kasoo maaxatay qofkana uu codkun leeyahay doorashada iyaduna jirta mararka qaar inuu fanaanku doorto midhaha oo uu yidhaahdo heesta oy dee meelu buuxiso realitiga markaan ka hadlo tanun maahee dhowr heesood waxaan arkay aan baraha bulshada ay ku qoran tahay nimco walba odaygeedii heestaa u qaatay nimco odaygeedii ku weerartay nimco fanaaniintan horta kala mid ahayo waa layska odhanayayo taariikh baa loo sameeyayo annaga oo dee fanaaniina baaba fadhii karla oo kolba waa lagula soo hadlaya waxaan ku weydiinay fanaanad heblaayo ma sidaasaa taariikh baa lagaaga gawsiinaya sidaydaba horta anigu hees allaala iyo heesayay ku jirta oo aan ujeeddo u qaaday haba yaraatee ma jirto marka la eego xagga faamiliyada iyo caruurta aabahood iyo taasina wax dhaqana maaha wax iga suurta galana maaha waana dhaqan aad u xun inay dad nolol wadaagi jireen sugaan isku weeraraan heestan 20 jir waxaa leh midhaheeda abwaan mubaarak qooro baxay marka messajka waa inaad gudbiso haddaad fanaan tahay oo aad u gudbiso dee cidda ay arrintaasi qusayso oo bulsho dhan baa u baahan oo halkaa ka hadlaysa oo qof kasta waxaa loo baahan yahay inaad dareenkiisa ka turjunto ka macquulka ah marka tarjunkeedii wuxuu noqonayaa gabadh ay nin ballan leeyihiin ama nin ay jecel yihiin oo nin kale uu soo weerarayo isagoo weliba dee bareeraya marka waa tan le dee labeentaa mid baa iska leh 20 jirkan calmaday lixaadkuna waa u dhan yahay waa u faanaysaa waa dhintee lixaadlabay leedoon waxbaba oo dhammaystiran lixaadkii waa u dhan yahay lamaanana waanu noqon dhawaanna waan isguursan doonaa caynkaasay u hadlaysaa marka waad mahadsan wataa macnaheedu wax i quseeyaana kumaba jiraan heesahaygoo dhan